wariye samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka waramay kulamo dhexmaray maalintii shalay ahayd wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adda xumaan reebista iyo wanaag fariista Soomaaliland waana kan Cabdimaalik oo ka waramaya kulamadaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay mawduuca aan doonayaa inaan ka hadlo waa kulan shalay ka dhacay xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta oo dhexmaray wasiirka wasaaradda maamulka gobolka Maroodi Jeex iyo maamulka guddida wanaag fariista iyo xumaan reebista kulankaas oo guddida loo soo jeediyay in ay raali gelin ka bixiyaan waraaq wanaag faris iyo xumaan reebis ah oo dhinacooda ka soo baxday oo ay bulshada uga digayeen xumaanta xarunta dhaqanka ee Hargeysa faahfaahin guddida wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland ayaa khamiistii doraad u dirtay imaamiyada masaajidada magaalada Hargeysa waraaq ay ugu baaqayaan ama ay waraaq ay ugu baaqayso in ay bulshada uga digaan halista iyo dhibaatada ay leedahay xarunta dhaqanka ee Hargeysa ee ka dhanka ah diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban masaajida badan jimcihii shalay waa laga fuliyay fariintii guddida waxaana bulshada loo sheegay waxa ay tahay xaruntaasi shalay oo sabti ahayd taariikhduna ahayd 28ka dilxijja 1442 hijriya kuna beegnayd 7 bisha 8 2021 waxa loo yeeray guddidii wanaag farista iyo xumaan reebista si wax looga weydiiyo arrinka waraaqda ay qoreen ee ay qaybiyeen kulankaas oo ka dhacay xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa lagu faray guddida in ay sheegtaan in ay waraaqdaasi si khaldan uga soo baxday isla markaana ay raali gelin ka bixinayaan arrinka waxa soo jeediyay ama arrinka waxa u soo jeediyay guddida wasiirka diinta iyo awqaafta miyay yeeleen guddidii sida maya ma ay yeelin oo waa ay diideen in ay raali gelin bixiyaan markii ay sidaasi dhacday ee ay ku adkaysteen mowqifkooda mar labaad waxa loo soo jeediyay in ay dib isugu noqdaan oo ay soo wada tashadaan sidaasaana lagu kala tegay shalay oo sabti ahayd waxaan leeyahay ugu horeyn waxaan bogaadinayaa ka hadalka guddidu ay ka hadashay xarunta dhaqanka ee Hargeysa sidoo kale waxa aan bogaadinayaa halka ay iska taageen guddidu raali gelinta loo soo jeediyay in ay bixiyaan haddii aan qodobka mar labaad ku celiyo ugu horeyn waxa aan bogaadinayaa ka hadalka guddidu ay ka hadashay xumaanta xarunta dhaqanka ee Hargeysa sidoo kale waxa aan bogaadinayaa halka ay iska taageen guddidu raali gelintii loo soo jeediyay in ay bixiyaan labo waxa laga xumaado halka wasiirka diinta iyo awqaafta uu ka joogo xarunta dhaqanka ee Hargeysa waxa ay ahayd inuu isagu tallaabo ka qaado xaruntaas halka uu raali gelin ku cadaadinayo dadyowgii isdiray ee ka damqaday xumaanta ay xaruntaasi ku dhex faafinayso bulshada muslimka ah ee ku dhaqan gayigan Allah mahadle xarunta dhaqanka dawladdu way taageertaa shaki kuma jiro waxa aan doonaynaa in dawladdu ka noqoto taageeradeedii siday ku taageertaa waxay ku taageertaa waxa ka qayb gala xafladahooda mas'uuliyiinta ugu waaweyn ee dawladda ugu sareeya ayaa ka qayb gala marka way taageertaa waxaan leenahay meeshaasi waxa la gaaray xilligii ay dawladdu ay ilaahay raali gelin lahayd halka ay raali gelinayso dadweynaha ka dambeeya xarunta ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamka SBC magaalada Burco.